wax badan ayaan ka meermeeray gardarrada dhulbahanta uga imaanaysa warsangeli wax badan baan islahaa waa ka waantoobi doonaan ee tooshka ha ku iftiimin laakiin maanta barnaamijka waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo sida xaqiiqada ah garnaqsasho cadaaladeed oo dhameystiran warsangeli qof kasto hadla wuxuu leeyahay dhulbahanta diyaar uma aha in aynu wax qaybsano mararka qaarna waxaad maqlaysaa iyagoo leh dhulbahanta abaal male oo waan u soo gurmanay inkastoo kelmadaas hartiga kale ay kala sameeyeen yihiin ogahay wixii xogahe laascaanood maxaad la tagteen oo aad ku darsateen dhulbahanta shaarkaaga iyo surwaalkaaga iyo boorsada aad wadato wax aan ahayn oo dhulbahanta laascaanood ugu geysatay oo wax kugu sii waayay ishay warsangeli dhul uu leeyahay uu maanta dhulbahanta kula shirkoobi karo oo uu madax bannaan yahay ma jira wiilka dhulbahante sharafka iyo sumcadda garaadkiisu difaacday halka wiilka warsangeli suldaankiisa ka soo cararay wiilal isaaqa ayaa hooygii suldaanka ku deglaynayay isla markaana biliqaysanayay hantidii uu lahaa suldaanka warsangeli war nin futadii suldaankiisa difaaca waayay miyaa wiil dhulbahante oo sharafka garaadkiisa difaacday maanta la loolamaya wax badan baan idinka leexleexday laakiin wax suurtagelaya ma aha intaa ka badanna dulmi dhulbahante ku socda qaadan maayo warsangeliyow maxaad la timideen laascaanood maxaad kula shirkoodeen laascaanood maxaad dhulbahante kula shirkoodeen nin shaarkiisa iyo surwaalkiisa iyo boorsadiisa wata ayaa dhulbahante u tagaye dhulbahantana gobol buu hayaa laba gobol buu hayaaye maxaad adigu sanaa ka keentay maxaad kula shirkooda dhulbahante taasi waa qodob labo waxaad tiri xildhibaanada waxaan rabnaa inay u hiilayaan qof warsangeliya ma xuma warsangeli ha loo hiiliyo madaxweyne inuu noqdo anigu wax doodo badan kama qabo laakiin qofka madaxweyne noqonaya magaaladee ayuu geyn karaa maamulka waqooyi bari meelna puntland baa haysata meelna somaliland baa haysatay warsangeli meel uu madaxweynaha xafiis uga dhigo ma leeyahay jawaabtu waa maya dhulbahanta abaal male kelmadaas warsangelina waan ka maqlay dhulbahanta majarteena waan ka maqlay ceerigaabo oo warsangeli u badan yahay ayaa wiilal dhulbahanta u dhimanayeen adiguna futadii suldaankaagii ayaad ka soo carartay wiil dhulbahanta ayaa kuu difaacayay maantana waxaad leedahay dhulbahanta abaal male dhulbahanta shalay waan u soo gurmanay ceergaabo dhulbahanta waxaa u qorshaysan inuu ka dagaalamo kuu xureeyo war shalay marka aad ku biiraysay puntland sida aad maanta u hadlayso majarteen ma aadan ula hadline maxaad dhulbahanta ku aragtay warsangeliyow shalay markaad majarteen ku biirayseen sida aad maanta u hadlaysaan maxaad ugu hadli weyseen cad quureed ma qaadano cad quureed ma qaadano soo guddoomiyihii baarlamanka dhoobadaarood mu ahaa magaciisa boosaaso markii lagu risaasaynayay ee lafihiisa uu ya allayaa nafta uga badbaadsaday maalintaas maxaad u hadli weyseen goormaad noqoteen dad wax sheegta oo maanta dad wax u sheegan kara oo la garami kara dhulbahanta wuxuu idinkaga saxan yahay wax walba waxaad soo qaadatay cali daacuunow maxamed jabuutaawi wuxuu yidhi nin aan gobolkan u dhalan baa ila tartamaya oo ku saxan yahay adigu gobolkaagii caawi war ceergaabo ma tegi kartaa kursi ma ka doonan kartaa cali daacuunow ceergaabo intaad tagto kursi ma ka doonan kartaa ma tegi kartaa ceergaabo iska daaya dhahar ma tegi kartaa jawaabtu waa maya magaalo nabada ayaa tagtay oo kursi aad ka doonatay ma ogtahay magaaladaasi waxaa u curyaama wiil dhulbahanta ah ninka maxamed jabuutaawi aad leedahay wiilkiisiibaa ku dhintay halganka hantidiisaa lagu dagaalamay maxamed jabuutaawi waa ninkii ciidamada jamaahiirtu marka ay la dagaalamayeen cadowgii hargeysa ka soo duulay ninkii la garab taagnaa naf iyo maal ayuu ahaa xaq buu u leeyahay inuu kula garamo musharaxaaga cali daacuuna waxaa la yidhahdaa jamaal cuqdad uu qabo iyo isla weynin uu laascaanood iskala weyn yahay ayuu musharaxnimadiisii ka dhowray inuu twitterka ku soo qoro oo yiraahdo dhulbahante magaalada laascaanood ayaan musharax ka ahay maamulka waqooyi bari bal arag cuqdadaasna waad qabtaan
ummadna inaad la loolantaanaad doonaysaa dhulbahanta dhulkan isagaa usoo dhintay xaq buuna u leeyahay isaga ayaana ceergaabo kuu xoraynaya tabar aad wax ku xoraysana ma lihid caada qaatahaaguna waa 100% maantana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aan ku marqaateenaya wiilka warsangeli suldaankiisu ka soo cararay wiilka dhulbahante garaadkiisu u dhintay una dhaawacmay difaacaya hadda